waxaa magaalada Hargeysa laga fuliyay in ka badan 40 kiiloomitir oo wadooyina sanadkii tagay 2023 wadooyinkaas oo dhamaantood ka kooban 27 aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii dhammaantiin annagoo idin soo dhaweynaynaa ka soo qaybgalka waxqabadka sanadkii tagay halkan dawladda hoose ee Hargeysa waxay ku soo bandhigtay waxqabad runtii mug leh oo muuqda oo qiimo leh waan hambalyeynaya hambalyo waxaan rajaynayaa in dawladaha kalena ay ku daydaan kuwa hoose iyo kuwa dhexeba waa tusaale wanaagsan weeye xagga wadooyinka waa run wadooyin badan baa la sameeyay alxamdulillah meel kasta wadaa laga sameeyay runtii anuu xagga meesha lacagta laga keeno runtii bal marka qaarkood is weydiinaysa laakiin waa midhihii juhdiga iyo dadaalka maxay raadinayeen golaha deegaanka deeq maaha oo deyn maaha waxa lagu dhisay cashuurtaadii ma jirta caasimad keligeed dhista magaalada Hargeysa waxay isugu yimid dhammaan Soomaaliland oo dhan iyo Soomaali waxay mudan tahay in loogu talagalo dhaqaale lagu horumariyo oo miisaaniyadda qaranka loogu daro mar haddii wasiirkii maaliyaddu halka fadhiyo mar haddii isweydiiyo xogaaga yareenu qabanay halka laga keeno waxaan wasiirka ka codsanayaa inuu miisaaniyadda qaranka xogaa caasimadda ugu daro waayo waad ogtihiin oo caasimadaha jaarkeena ma jirta caasimad cashuurta yar ee magaalada laga qaado lagu dhisaa haddaad tusaale u soo qaadato magaalada Addis Ababa waxaa mashaariic waaweyn ka socda waxaa lagu dhisay heshiisyada ay dawladda Itoobiya kula jirto caalamka iyo lacag fara badan oo uga timaada dawladda dhexe haddaad eegto magaalada Kenya oo wadooyin waaweyn hadda loo sameeyay sida loo dhisay waa iskaashiga ka dhaxeeya waddanka China ama kumbaniya Chinese iyo bangigooda horumarinta iyo waddanka Kenya saasi la mid ah mar haddii Soomaaliland halkan isugu timi suuragal ma aha in horumarka la doonayo in la sameeyo lagu sameeyo cashuurta yar ee la soo ururiyay si labada sano barka haray aanu u qabano shaqo fara badan waxaanu codsanaynaa in dadweynuhu ay iskaashiga ay wax nagula qabanayaan kordhiyaan waa xaflad aad iyo aad u wanaagsan munaasabad aad iyo aad u fiican maamulka dawladda hoose meeyar ku-xigeenka xoghayaha agaasimayaasha waaxyaha iyo golaha deegaanka barnaamijkan aadka u fiican ay halkan ku soo bandhigeen waxqabadka dawladda hoose iyo waxqabadkooda sanadkan aynu ku jirnay 2024 oo aad iyo aad u fiican aad baan ugu hambalyeynayaa maayar ku-xigeenka guddiga joogtada xoghayaha dawladda hoose iyo golaha deegaanka intaba si fiican baan ugu hambalyeynayaa waxaan aaminsanahay in ay sharaf weyn inoo ahayd caawa inaynu kala soo qayb galno dawladda hoose ee Hargeysa xafladda tan iyo dabaaldegga kan qiimaha weyn ay noo soo bandhigeen runtii waa arrin ay tahay inaynu bogaadino oo lagu farxo waxaana codsanayaa inaad mar ila tidhaahaan hambalyo inaynu hambalyeyno dawladda hoose ee Hargeysa sidaa darteed hambalyo ilaahay wuxuu nagu guuleeyay muddada kooban ee aanu joognay inay noo qabsoomaan waxqabad aad iyo aad u fara badan oo caawa hortiina intii ugu dambeysay halkan laga xusay waxqabadka waxa suura geliyay bulshada ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo shaqaalaha weynaha dawladda hoose Hargeysa waxqabadka dawladda hoose waxa kamid ah horta wadooyinka oo u dambeysay wax weeyaan taa xaafadayda daba marta oo maalin la furay oo gaafane daba marta halka inta shidalka gaafane ilaa iyo goolada isku xiri doonta Mansoor habeen dhaweed oo aan hudheelka aan fadhiyay gacan leh calaamadaha oon xaafadda imanay 12 kiiloomitir
oo wada laamiyaan soo maray doona insha Allah anigu xildhibaan ahaan markii hore waxaan islahaa waxa uu sheegay maayirku war mala caasimadu way balaaranaysaa uu ku fashilmi doonaa oo waxa uu sheegay waa la waay doonaa laakiin hadda waxa uu muuqato aan arkaa inuu Hargeysa dhinac uga dhacayo isaga golaysa deegaanku hadday sii joogaan waxa harajeynana hadii alla yiraahdo wax qabadkan maanta halkan dawladda hoose ku soo bandhigtay sanadada soo socda insha Allah ta'ala inay degmooyinka kale Soomaaliland hay caawin doonto baan la rajeynana sababtoo ah si wax u qabanaysa waxa weeyaan sidii loogu tala galay hal mid baan wasaaradda caafimaadku waa wasaaradaha ay wada shaqaynta ballaaran leeyihiin dawladaha hoose ee dalka gaar ahaan dawladda hoose ee Hargeysa dawladda hoose runtii iyadoo ugu dambeysay dawladaha hoose ee mashruuca maamul daadejinta ku soo biiray haddana muddadii aan wada shaqaynaynay waxay muujiyeen inay ka hormareen dawlado hoose oo badan marka la eego dardarta ay ku wadaan inay la wareegaan caafimaadka aasaasiga ah ee ay ugu ballaaran yihiin dhismayaasha iyo hawl socodsiinta xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka isla markaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo dawladda hoose ee Hargeysa wada shaqaynta ay leeyihiin waa mid aad u wanaagsan waxaanu ka wada shaqaynaa ciyaaraha degmooyinka oo ay dawladda hoose ee Hargeysa maal geliso 2021 iyo 2022 waxaan bulis ahaan ka marxaati furaynaa in ay halka dawladda hoose wax qabadkooda uu ku soconayay xawli aad u dheeraynaya Soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muuqda su'aal ma baahna wax qabadka dawladda hoose waxaynu daawanay wax qabadkoodii qoraalka buugana waynu ku aragnay innaguna waynu ka marakacaynaa wax badan oo ay qabteen oo ka muuqda caasimadda Hargeysa